السلام عليكم دمانتين waxaan rajeyneynaa wada caafimaad qabtaan maanta waxaan ka hadli doonaa question type-keenii afraad oo la yidhaaho which paragraph contains question type-ka noocani wuxuu ku jiraa reading-ka wuxuuna kamid yahay reading exam-keena bal waxaan isla eegi doonaa sida uu ku yimaado iyo tibiskaad uga shaqeyn karto iyo qaabkaad uga shaqeyn doonto waxaan ka wada shaqeyn doonaa example kala duwan marka insha Allah aan isla wada eegno question type-keenan afraad waxaa la yidhaahaa ama waxaad ka rajeyn kartaa inaanay answersku mar walba inagoo odhan jirin answersku waa in order laakiin kuwani answersku are not in order in the passageka answerska in order kuma jiraan oo su-aashan horta macnaheedu waxa weeyaan which paragraph contains information baa lagu siinayaa informationka 1 2 3 4 informationka waxaa lagu odhanayaa paragraphkeebaa informationkan ka kooban marka paragraph A baad leedahay information hebel buu ka kooban yahay B baad leedahay information C marka haddii lagu siiyo already in order ay noqoto de wixii way iska fududaanaysaa paragraphka inta soo qabato baad isku aadinaysaa laakiin marka answers are not in order in the passage waa in lagu kala duduwaa oo passagekiiba mid uu ku jira answerku the same paragraph may contain more than one answer same paragraph in waxa ka koobnaan kartaa suurtagala uu ka koobnaan karo more than one answer hal answer wax ka badan ka koobnaan karo some of the paragraphs paragraphyada qaarkood ba may not contain an answer paragraphyada qaarkood ban answer ku jirin ba waxa lagu siiba sentence kala duwan oo ka ugu horeeya uu yahayba tusaale ahaan oo kale example caadi ah lagu siiyo sentence talabaadna sentence saddexaadna sentence laga yaabaa inay laba sentence oo halkan ku jira ay paragraphs ku mid ay ku jiraan marka which paragraph contains waxa ayaad ka rajeynaysaa ama qaabka ayaad aad ka filan doontaa inay background answerskeegu noqon doonaan inaanay mar walba in order ahayn ay mar walba ay ku kala jiraan paragraph kala duwan ay ku kala jiraan oo ka ugu horeeya su-aasha ugu horeysa ay ku jirto karto paragraphka ugu dambeeya tibiska aynu halkan ku bixinaa waxa weeyaan tibis kala duwan question type-yadeeni hore question type-keenan ma garanaysaa which paragraph contains mar walba waxa samaysaa ugu dambeysiyada iyada ugu dambeysii marka passage-ka laga yaabaa inay ku jiraan sida isla arki doono true and false gap fill iyo which paragraph contains ay ku jiraan marka which paragraph contains ka ama su-aasha type-ka noocana marka ugu dambeysa ka shaqee si ay kugu fududaato passage-kii mar hore ku noqnoqday oo ku soo noqnoqday at which paragraph contains at uga shaqeyso ka bacdi ku fududaato inaad markaaba answer ka soo heli karayso rule all other questions for that passage first you will then be familiar with the passage and waxa ku fududaa doona in passage-ka familiar la noqoto you might get some answers from memory marka passage-kii dhowr jeer akhrido oo true false and not given key aad akhrido markaad ka shaqeynaysay fill gap-kii aad akhrido markaad magaranaysaa ka shaqeynaysay markaad soo gaadho which paragraph contains-ka waxaa suurtagal ah inaad qaarkood passage-ka kusii aragtay ood kasii shaqeysaba underline keywords in each statement kasta keywordskiisa highlight garee then start with the easiest ka bilow ama ka ugu fudud ka bilow hadduu ka ugu horeysa oo adkaado maadaama ina answersku mar walba inoo dhahayn ka ugu jilicsaneed aragta ka bilow tibiskaasa question type-keenu kaga duwan yahay question type-yada kale insha Allah intana hore waynu soo aragnay mar walba intaanad akhriin passage-ka akhriin horta marka hore title-ka akhriin then question-ka koowaad tag question-ka and keywords-keega soo highlight garayso ku soo noqo passage-ka answers-ka ka dhaxbaan marka tibiska mar walba intani waa inta inoogu magaranaysa muhiimsan mar walba ayna awoodda saarno insha Allah sidaas ayaynu uga wada shaqeyn doonaa example-kana balaan isla eegno aynu ka wada shaqeyno insha Allah imakana aynu isla eegno example-keenan waxaynu haysanaa passage-ka waxa ugu soo horeysa imika qaybta ugu soo horeysa waxay noqonaysaa which paragraph contains each of the following information so waa question type-kii imika aynu soo dhiganay laakiin maxaynu nidhi mar walba ka bilow iyaga ha ugu hor bilaabin waxaad question typeska kale kasoo shaqee gap fill-kana oo imika kale intaynu ka shaqeyno true false taana aynu ka shaqeyno ayaynu ka bacdi usoo noqonaynaa aynu usoo noqonaynaa answer-keena ama ma garanaysaa question type-keena example-ka marka waxaynu ka bilaabaynaa
waxaan ka bilaabaynaa gap fillkeenan. questionka koowaad maxaynu yidhi horta marka hore soo akhri titleka oo keliyaata, then go directly to the question tab. xagga maxay noogu qoran complete the following sentence with no more than 2 words. waxaan 2 words ka badnay waa inaad ku buuxisaa from the text for each gap. So Falone is now studying the sleep patterns of children with, okay, Falone waa keyword highlight garayso, is now studying, okay, research buu ku sameynayaa the sleep patterns of children, caruurta maxay qaba ayuu ku sameynaya researchka sleeping patterns. Falone ayaan raadinaa horta ninka magaca leh dhakhtarka waynu halkan ka dhex raadinaa. horta halkan inoo yaala deganaan baad iskaga akhrisanaysaa. haddaad baargaraafka ka weydo ka ku xigta ka dhex baadh, isaga laftarkiisun ka dhex baadhun, ama keywordska aan raadino. Okay, raising the question of whether sleep deprivation could prove even worse for people with attention deficit hyperactivity disorder or ADHD. Falone is studying that question. Falone imika wuxuu research ku sameynayaa ciyaalka qaba ADHD-ga ama attention deficit hyperactivity disorder. So maxaynu halkaa ka dhigaynaa ta ugu horeysa ADHD baan ka dhigaynaa. sideen kusoo helnay ADHD? halkan soo akhri. Difficulty paying attention was among problems the sleepy youngsters faced, raising the question of whether sleep deprivation could prove even worse for people with attention. halkan buu questionka buu baarayay oo wuxuu ku sameynayaa magaranaysa sleep deprivationku inuu proof gareeyo inay saameyn xun ku yeelan karto dadka xanuunka qaba ADHD-ga. halkan sentenckan waxaa loo sii raaciyay Falone now studying that question and suspected that sleep problems could hit children with ADHD as a double whammy. sentenckan laftarkiisu wuxuu noo sii cadaynayaa in ciyaalka ADHD-ga qaba uu research ku sameynayo waa tan children highlightka inoo saar. markaa bal aynu ADHD aan doorano. mar walba adoo deganaan ku akhriyaya ayaad aad magaranaysaa ayay ka shaqeynaysaa. The researchers used, okay, that show researchers used waxay isticmaaleen waxbay isticmaaleen that show movement keyword bay noo noqonaysaa. To check that children went to bed, to check that children went to bed, okay, to bed at the right time. Okay, instrumentka researchers ku isticmaaleen bal aynu halkan ka dhex baadhno. instrumentka laftarkiisa naga doonay. The researchers used something that show movement to check that children went to bed at the right time. Okay, haddaad paragraafka kaa ku xigaad ka weydo, just go directly to each paragraph. mid kasta iska akhri magaranaysaayay ilaa aad ka helaysa answerka. The other week they were kept up later than usual. First and second graders were in bed no more than 8 hours and all. Okay. In addition to parents' reports, the youngsters wore motion detecting monitors to ensure compliance. waxay xidheen bahal yar bay gacanta ku xidheen si loo qiyaaso magaranaysaa hurdadooda. marka maxaan dooranaa maadaama ayna ahayn 3 words aan uga baahnayno 2 words keliya tan looga baahan yahay. risk monitorskaasaan dooranaa ama baasha yar gacantaad ku xidhanayee monitor garaynaysa. Students with less sleep, okay, highlight gare, with less sleep had problems with memory, remembering new materials,
remembering new materials, remembering. Okay, iyada laftigeeduna keyword. Okay, iyo something else. Marka ciyaalku ay hurdo la'aan ku dhacdo, problems ka soo waajaha waxaa kamid ah memory-go ay problem uu ka soo waajaho iyo inay waxyaabo cusub xusuustaan iyo wax kale ayaa la weydiiyey. Marka balayna halkan ka eegno. The teachers reported significantly more academic problems during each week. The teachers, okay, during the sleep of the study. Memory-googa waxaa la yidhaahday dadka 8 saacadood seexata ama ardayda 8 saacadood iyo wax ka yar seexda aad bay wax u ilaabi jireen. Waa memory-googa problem ka soo waajahay. Waa paraphrasing uma lagu sameeyo. And the most trouble learning new lessons. Learning new lessons is kana problem book haystay. Trouble or problem soma. Remembering new materials and had problems paying attention. Paying attention iyadna waa problem kala soo maaha. Marka problemkii saddexaad ee laga doonay muxuu noqonayaa paying attention buu isna problem uu ka soo waajahay. Okay. Falone admitted that it was something for the children. Haye ciyaalka maxaa ku dhacay to get enough sleep. Inay helaan ma garanaysaa enough sleep qaab nooceeya bay adkeyd. Halkan bargaraafkan weyn ka weyne bargaraafkan inta ugu dambeyso ay oranayaan ma garanaysaa inantiisa yar uu ka sheekeynayo. Halkan buu wuxuu yidhaahday it is tough. Okay. He acknowledged it, but parents must believe the importance of sleep. Wuxuu yidhaahday in ciyaalku ma garanaysaa lagu hayo waqti lagu hayo ma garanaysaa mar walba waqtigooga dee hurdada ay seexdaan in ku filan aad bay u adag tahay. Laakiin mar walba waxa muhiim ah in ma garanaysaa ay helaan ciyaalku enough sleep. Marka si aad bargaraafka mar walba bargaraafka ku xiga dadka wiilka ku sii xiga tag. So halkan aan ka soo bilowno si aad context ku hesho. Wuxuu ka sheekeynayaa so how much sleep do these kids need? Recommended amounts range from about 10 to 11 hours a night for young elementary students to 8.5 hours for teens. Fallon insists that his own second grader get 10 hours a night, even when it means dropping soccer. Season that practice did not start until 7:30, too late for her to fit in dinner and time to wind down before she needed to be snoozed. It's tough. He acknowledged it. Acknowledged it also, waxaan ku haysanay admitted. Acknowledged iyo admitted waa isku macne. Marka halkaas waxay noqonaysaa tough bay noqonaysaa. So sababtaynu kuwan uga hor shaqeynay ayaa waxay tahay imika waxay noo fududaanaya bargaraaf kasta oo akhrinay. Bargaraaf kasta inagoo soo akhrinay inagoo ka shaqeynayna. Marka haddaynu ku noqono true and false taana ka hor shaqeyn mar walba. Si imika tan waxaan ka shaqeynayaa toos baan uga shaqeynayaa tan. Laakiin mar walba mar walba ma garanaysaa si ay kugu fududaato ka soo wada shaqee then go back to which paragraph contains. Sidaas ayaa ugu fudud. Marka aynu isla eegno maadaama aanu doonay inuu videoga sii dhamaado imika uu sii dheeraado waxaan ka wada shaqeyn doonaa qaybtan which paragraph contains. Traffic accidents were keyword are sometimes caused by lack of sleep. Paragraph keebay ku jirtaa intaa sentence-kaasi. Paragraph halkan aynu ka arkaynay bay ku jirtaa oo tahaa halkan buu ka soo sheekeynayay not getting enough sleep is linked to host of problems. Okay, from car crashes as driver doze off to crippled memory and inhibited creativity. So car crashes kaasi maxay noqonayaan waa car accidents-ka. Mar walba laga yaabaa inay magaranaysaa paraphrasing lagu sameeyo question-ka. Wixii halkan statement-ka halkaad ku arkaysay inaad paragraph-ka isagoo si kale u qoran aad ku aragto. Ima car crashes-kaas oo kale ayaa noqonayaa traffic accidents-ki. Markaas C bay inoo noqonaysaa su-aasheena koowaad. The number of children included in the study. The number of children included in the study. Inta
inta ciyaalo lagu soo daray studyga ama ku jirtay. Halkan baa paragraafka kaagu xiga nasiibkeena baynu halkan ku arkaynaaba. They recruited waxay shaqaaleysiiyeen 74 6 to 12 years old jasiirada ka yimaaday iyo magaalada kale Southern Muscat. Okay, 6 to 10 to 12 years old. So 74 people. Marka maxay noqonaysaa paragraph D inaynu keeno. How two schools are trying to deal with the problem. Two schools baa problem la deal garaynayay meelaha magalka ayaa waa kan Botron Elementary School send notes to parents reminding them to make sure students get enough sleep. Waa number 1 schoolkaas Botron parents la yidhaaho. Halkana another school baa magaranaysaa iyaguna familiyada u diray oo newsletterkana kusoo daray. Marka say maxay magaranaysaa noqonaysaa tanna F bay noqonaysaa. Marka imka paragraph isku xigta kuma jiraan oo ay kala duwan yihiin. Sidoo kale paraphrasing baa lagu samayn karayaa. Mar walba waxaan yiri kuwa easiest ka bilow. Marka kuwii ku fudaadeed marka hore paragraafka ku soo aragtad ka hor shaqeyn kartaaba. Tanoo kale how the effect of having less sleep was measured. Highlight ka saaranaysaa. Markaad highlight ka saarato waxa ku fudaanaysa inaad markaaba soo hesho keywords ka soo hesho. Xagan baa inoogu sheegeen effectiga magaranaysaa less sleepka sida loo qiyaasay. Halkan waxay noo sheegeen teachers reported significantly more academic problems during the week of sleep deprivation. Okay, academic problems kaasaa lagu qiyaasay. Marka waxaan dooranaa tan iidaayin dooranaa. Marka saad ugu shaqeynaysaa waxaan rajeynaa inaad ila fahanteen. idinkuna bal commentiga igula soo wadaaga insha Allah waxaad su'aal qabtaan. Aad baad mahadsantiin dhamaantiin.